الرحمن الرحيم. أنا مقعي وحلي هذا كورنيل أحمد جامع قدلي إن وحن ربع كان عاوينا شد شرايط كقبته أنا الربع بلينا كهضله أرميه قدام بي صوماليا إيوه أرميه قدام بي مام القبلات كخاتمه إيه شعب كخاتمه أيان ربعين عاو هالكن هنا كهضله إن مركوه الرئيسة بسم الله وحن هالكن تاجر بحدا وقدر يا أنا كورنيل أحمد تاجر بحدا وحن هالكن وقدر يا عمبريو مام القبلات كخاتمه وبيش أفرتي أبريل كاري قان أي حركة وجريان دولة دي الصومالية أي حركة وجريان هالكن سيدا أوجد بن هالكن تاجر عوا وقدر يا وحنلاقي مام القبلات كخاتمه قال هم قولها وسيرة يمدحوينها وقاميني قان كشلاء الجارين إدحال كها قان كسوها قان جسنمله كرامله يودي إلى السيء يددنمو أيكو جارين إيوه أودي تستورك أهيد يشتغلوا ذهيد ويشتريتوا قان كحقل كأيكو صارين آدي بنقوهم بليانية آدي بنقو فرحسن هاي قان كشركة صوب هاي قولي وسيرة يوم يدحوينهم قاميني حدانا نهاي دمان شعب كريه خاطمو ميلا يجوبين قدية دبدبا ونسيور دويننا ونطاقرسن هاي وحنو الله هاي شعب كريه خاطمو ميلا يجوبين بقدية دبدبا إناي تاغيران قان كاس الحلقل كاه قيمها يقايها له كالصوب هاي مامل قبلت كخاطمو شريتو أفرتي أبريل إن وين لا تاجر ضدك الشعب كا وحنو شيء يا دلوبانتي وحنو شيء يا تاجر ما ممكن تاجر قوان كا كنت تاجر قريها كالصباحة كنت تاجر قوان كاس معمولة كلابا صحيح خلط بوحي صوص على نديك كذا وين تاجران مركا معمول الشعب لهين معمول ماها معمول كنا هو شعب كالدولة ده مركا وحن كعب سنة شعب كا دلوبانتي بيري جوجان بقى inay guriyaha ka soo baxaan maamulkooda ku taageeraan si toos ah ugu taageeraan go'aankii dhaxalgalka ay shalay soo baxay aad baan ugu mahadcelinayaa golihii wasiirada iyo madaxweynaha shalay go'aankay soo saareen go'aan geesinimo ah runtii anigoo ah Korneyl Axmed anigu hore ban dowladda Soomaaliyeed aan xariga ugu jaray horaan u sheegay ma qasir loo ogyahay horaan xariga ugu jaray codsigeena ku jirtay in maamul goboleedka Khaatumo uu xariga u jaro dowladda ayada daciifka ah ee Xasan Sheekh Maxamuud ويهجاميو مركا عادي بان تاغيرسناهي halka ka sii wada cadawgu maalinta hada shaamba ee meediyaha soo taagtaanba ee aad hada shaamba cadawgu waa naxa maalinta aad aamustaan ee muddo iska aamusnaataana cadawgu wuu farxa oo wuxuu moodaa inaad meesha ka tagteen ama aad iska baabacdeen oo maamulka Khaatumo oo iska baaboosi kala tagay habeenka hada shaana waxay ku tahay labada maamul hareeraha gantaal أما مثال بدوين لقصة طوري أي كنتها همين كأو مدحوينها خاطمة الله وحكنتها مثال وكل ذي قروية الجيسة مركا وحمد الله هكا كهية شركة بضية قوام بضا بضية ميديها بضية إلا مدافع بكتها هالكا كهية سيدا سايقنا مامك خاطمة عن له إن وحن هالكا كتاجيرية أوكله شعبك قبل كعين gaar ahaan magaalada Boohoodle ban halkan aad hambaliyo iyo wanaag iyo khayr uga diraya sidii fiicnayd ee u soo dhaweeyeen ama ay u martigeliyeen maamulkoodii Khaatumo ee hadda la jooga aad baan ugu mahadcelinaya sida fiican ee u soo dhaweeyeen waxay garteen shacabka reer Khaatumo ama shacabka reer Boohoodle ama shacabka gobolka Cayn waxay garteen in dawladnimadu ay shacabka tahay in maamulka Khaatumo iyagu leeyihiin taasay garteen aad baan ku hambalyeynaya sida geesinimada leh ee sharafta leh karabada ku jirto ee aad cadawgiinana isaga difaacdaan aad baan reer Boohoodle ugu mahadcelinaya sida iska difaacaan waxa kale oo mahadcelinaya ciidamada dhulbahante ee kala duwan hadday yihiin kuwa madaafiic haya iyo hadday kuwa yihiin kuwa duurka ku jira iyo hadday kuwa yihiin magaalada jooga dhammaan ciidanka reer Khaatumo Boohoodle iyo agaarkeeda iyo deegaanka reer Khaatumo jooga aad baan ugu hambalyeynaya halkaas ka haya
geesinimaduna sidaas ay sharaftii karaamaduna ku jirtaa saasan reeb buu hodana aad iyo aad ugu mahad celinaya supportina u siinaya karaamada iyo sharafta ay isoo dhaweeyeen dawladoodii halka ka haya waxa weeye dawladnimadu waa shacabka weeye dadku waxay u haystaan dawladda inay dawladdu iyo dadka leedahay dawladdu dadka male dadka dawladda leh sida weeye annagu Yurub baan joognaa wadamada horumaray shacabku markay dawladda nacaan ama dawladda wax ka tirsadaan qofku ma qayliyo dhagaxna ma turtuuro maamulka iyo madaxdooda ma caayo wuxuu sugaa xilliga doorashada ayuu sugaa maalintaas ayuu maamulkii meesha joogay oo codkiisa ku ridaa halkaas hawshiina ka sii socota marka dhagaxba la tuuraya iyo waa la caayaya iyo madaxweynaha la caayaya iyo gudoomiyaha baarlamaanka la caayaya iyo qol buu hodla la isku xidhaya markaas la caayaya maamulka khaatumo iyo waxaas oo dhan wax qiimo ay leeyihiin male maamulka khaatumo madaxweyne cali khaliif male gudoomiyaha baarlamaanku male golo wasiir male waxa iska leh shacabka reer khaatumo ay iska aniga iska waana ilaashanana mana ogolin wax ka daba hadlaya wax xagga waxay waayo faynuska yaraan oo daran marka waxa leeyahay reer shacabka reer buu hodle halka ka haya sidana isu difaac taana halkaas kaga baxaya haddaan ka hadlo shirki garowe ka dhacay sidii Soomaaliya dhawada kasay laba wiil oo ilmaadeera marna isu seediya sida Soomaaliya ogtahay ayaa halka heshiis waraaqa ku kala saxeexday anu marka labada wiil ilmaadeerka marna isku seediga ee garowe waraaqa saxeexaya anu wax qiimo aanu arkaba maleba haddaanu reer Khaatumo nahayna nama waxoosaysaba waayo Puntland hal taako oo dhulka maamul goboleedka Khaatumo ama shacabka Khaatumo ama dhul baahante hal taako kama joogto shaqana kuma leh annaguna reer waqooyi baanu nahay iyaguna reer koonfureed weeye shaqaba isku maliinba wax naga dhaxeeyo oo kale ma jirto marka waxa weeye waraaqaha la saxeexday labada wiil ee madeerkii seedigi saxeexay waxaanu qiimaha uma arko waxaan iyagana halkaas ku dhaafaya waxaan ka hadlaya kuwa lagu sheego international community ee garowe joogay ee labada nin ee madeerka tagna ee qosqoslayay marba waraaqaha dhinacoodii ee international community la kuwaas anagu raba in Soomaaliya u sheego kuwaasi bal waxa la isweydiisan garowe ma nuclear bayaalad waxa la garowe la bariyay oo waxa lagu bariyaa 4.5 يا بريء يا عالم كيف يسوي تغير بريء بل لما الماديرة يقروا وح عالم بريء يوم حيتا وحوي عالم وعالم كدلك عراق الأورنجري دول خلي جاي عالمكو وعالم كي ودن كي ليبيا الأورنجري إيردستان دول خلي جاي عالمكو وعالمك برجع دحق أردن وراي يحبذ كلا داري عالم كواكاس عالم كسياسي أيام أنت وحو بريا يقروي بالباور كقروي يالو عالم بريا يوم حيث مثل وحوية معنوه وحوية وبهدلك الصومالي لقوها يو بهدلك الصومالي لقوها يقيب كمدوي وبهدل معناه هذا وحوية ودفاع الرود ودفشن وقيب يحكم وحل الغلاء إن قروا ما أنت لو قدك الصومالي دين قروا باور خاصة بعريه بالباور نقضي ما أنت اللي يلهدو برينا اللي يلهدو قلب دوك باورة ما أنت كل احتنا الرب بيدا باورة ما أنت اللي الرب اللي وينا باورة ما أنت اللي دبل يلهدو تشوف بلام باورة وقبيل بقبيل ككلكو وأركو إنه باور سجي هاي إن السنة كدقان وقبائلكو كلام الصيران وقبائلكو سكسور تستان بيرمان سبب تقروا عالمي تشوفي ما باور ماشي يلي وحوي وبهدل لوهايو Soomaaliya عالم إن إذا كي حوجة دلك الصومالية للصنايو موقع إن مدحوينا كرامة يشرف لي برايم مينستر كرامة يشرف إلى الصنايو موقع برلمان كرامة يشرف لي إلى الصنايو موقع وحور ربا كلية إنه قبائل كالقيبية أو الصوماليين قبيلة كالقيبية أو مامور قبلية الصنايو أو سال يستقيو هرد بقارته عالم كوا عالم كسيد عربة تجروا اللي وسع يوحى عالم كجروا الشجرة والنوع وقيبي وحكم سلاسوي تانا هكذا كجبحية حتى كل نقطة
puntland ama maamulka garowe ama madaxweynaha garowe 4.5 baanu diidnay 10 times buu ku celceliyey annagu ma ogolay 4.5 dadkiisa oo dhan wuxuu akhriyay iyo reerkiisa wuxuu akhriyay 4.5 waynu diidnay Soomaalida danuma haddaba bal waxaad is weydiisaa qofka reer Khaatumo ama qofka Soomaaliyeed bal waxaad is weydiisaa arrinkii sida ahaa maxaa Cabdiweli hal mar ku soo degay Cabdiweli waxa ku soo degay oo wax walba kala weyn inuu dhulbaanto xumeeyo ayaa wax walba kaga habo inuu dhulbaanto xumeeyo xumaanta dhulbaanto waxa uu caalamka ugu yeedhay wuxuu 4.5 kii uu ku aqbalay waa 9 kii xubnood ee dhulbaante aniga hal la isiyo ana soo qorayay golaha sare ama golaha dhaqanka sarena aniga soo qoraya oo Cabdiweli oo dhulbaante wakiilka aniga hal la isiyo maamulkii dhamaa iyo ummadii dhamayd iyo 4.5 kii dhamayd iyo ummadii soo wuxuu sheego dhan wuxuu siistay 9 ka dhulbaante iyo oday dhaqameedka dhulbaante golaha sare gelaya ayuu siistay waxaasnimada aabaheed waxay ku tusaysaa xaasnimada iyo karaamo xumida meesha taala garowe ee dhulbaante ku jahaysan garowe iyo maamul goboleedka Puntland iyo Cabdiweli iyo Sharma Arke Cabdirashiid midna ma xukumo dhulbaante dhulka dhulbaantena ma jooga shaqana kuma leh hal taako kama jooga Soomaaliya saas u sheegaya Soomaaliya waxa uu sheegaya maamulka Puntland la yiraahdaa isku juqraafi kaliya mani waa reer koonfureed annaguna reer waqooyi baan hatta isku juqraafi mani waxa naga dhaxayso kaliya waa Soomaalinimada iyo haddii qaran Soomaaliyeed la helo iyo haddii islaamiyiin uma naga dhaxayso tan yare qabiilka ah ee daciifnimada ah ee daaroodnimada ah ee hartinimada ay sheegaan yaa sheegay Soomaali ama taariikhda ma arag meel la leeyahay Soomaali DNA baa laga qaaday oo qabaa'ilkii baa lagu kala saaray oo leeyahay adigu reebel baatay adna reebel baatay DNA ba cadaysay anuu ma hayo wax ka jira male wax harti leeyahay ma jiro haddaan reer Khaatumo ma aaminsanin taasaan u sheegaya caalamka iyo Soomaali weyn in annaga wax naga dhaxeeya jirin laakiin ay tahay xaasnimada ugu qarmoon ay tahay inaan dhulbahanto u daba socdo waa qayb ka mid ah kalsoon xumo iyo xaasnimo iskuma kalsoona garowe iyo qardho iyo xaafada galkacyo xukuma iyo boosaaso barkeed ayuu xukuma wuu iimaansan kari waay waxba uu noqon kari waay dhulbahante oo dhulkiisii jooga la daba dhigay nin Allah leh ninka meesha yimaada Puntland nin Allah ninka yimaada dhulbahante buu ku soo taagay noloshiisa wuxuu arkaa dhulbahante inuu cunayo iskuma kalsoono taana waxa weeye waxa meesha lagu saxay iyo waxa 4.5 ki Puntland ay uga tanaasushay waa xumaanti dhulbahante xumee oo 9 xubnood iyo golo baarlamaanka golo sare qaado waa inta waxa noloshooda ku weey iyo waxa la waxa sheegayaan taana halkaas kaga baxaya waxa qiimo anagana loo leeyahay male waxaan haddana ka hadlayaa garaadada dhulbahante ama odan dhaqameedyada dhulbahante caaqil to garaad inta u dhaxaysan ka hadlaya waad ogtihiin caaqilada iyo garaadada iyo sharafta lahow go'aankii shalay soo baxay 4 April 2016 ay soo saareen golihii wasiirada iyo madaxweynihii oo jooga oo hogaaminaya go'aankii soo saareen shalay iyo shacabkii Khaatumo oo taageersan daba fadhiya oo ahaa 2016 inaan laga qayb gali karin mandate qof aan la siinin inaanu ka qayb gali karin maamulka dawladda Soomaaliya 2016 doorashada soo socota inaan xildhibaan aqal hoose ka qayb gali karin inaan golo sare oo dhaqameed ka qayb gali karin shalay 4 April ayaa waxa soo saaray go'aanka golihii wasiirada oo madaxweyne Cali Khalifa hogaaminayo iyo shacabkii annaga oo ka dambayna go'aankaas waxa ay in laga qayb galin marka waxaan u sheegayaa oday dhaqameedyada dhulbahante
from عاقل to garaad waxaan u sheegayaa in aan lagu sirin in aan lagu khiyaamaynin in ay ka qayb galaan golaha hoose iyo golaha sare golaha hoose xubno baarlamaan golaha sare garaadada oo doonaya halka xamri la geeyo oo ku biiraan dawladda xamar laga sameeyo haddaan mandate golaha wasiirada ee reer Khartoum iyo shacabka reer Khartoum mandate haddaan idin siinin ha isku ceebaynina haddaba ha isku ceebaynina waxaan u sheegayaa garaadada dhulbaante iyo dhaqameedyada dhulbaante ee karaamada leh karaamada leh anigu kama hadlayo hadda garaadada dhulbaante rixiin garaadada way karamaysayin waa garaadada anaga doonay sharaf mudan laakiin waa warren waa digniin hore leeyahay waa wax soo socda ka tigaysid baan is sheegay anigu caaqilkaygi marka iska hadlo caaqilkayga waan u sheegay already waan u sheegay waxaan ku yiri caaqilkayga oo Soomaaliya 2016 April 4 in go'aan la gaaray gobolka Khartoum go'aan gaaray inaan caaqil dhulbaanti iyo garaad dhulbaanti inuu ka qayb galin wuxuu yiri waan ogahay iska ilaali baan caaqilkayga waan ku yiri iska ilaali xaraan way iska ilaali baan ku yiri adiguna sharaftaada meel kaga dhici hadduu iska dhagatiro caaqilkayga ana runtii sheegay hadduu iska dhagatiro caaqilkayga tiifiyada Soomaalida dhan baan u yeelay caaqilkaygu hadduu xamar ku tago mandate la'aan maamul gobolka Khartoum mandate oo sin iyo shacabka dhulbaante mandate la'aan soo ku tago caaqilkayga ka bilaabaya tiifiyada Soomaalida internationalka iyo kuwa localka dhan baan u yeelay halkaas sharafta kaga qaadaya caaqilkayga hadduu saasameeyo marka waxaan uga digayaa oo sheegaya shacabka reer Khartoum meel joogaan inay ugaaskooda iyo sudaankooda iyo garaadkooda iyo caaqilkooda inay u sheegaan inuu iska ilaaliyo waxyaalaha waa bid'aadam oo khaldami kara haddaba inuu iska ilaaliyo sheega usi sheega waayo ninka caaqilka garaad ugaaska ee golaha sare noo gala isaga mandate ka wadan xukuumadeeni oo leeyahay xubin baarlamaan baan dhulbaantaan xamar baan tago dawladda ku jira ama uu yiraahdo garaad dhulbaantaan ahayo aniga garow laga diraa meel kale laga diro ana dhulbaanta matala waxaad ogaataa qofka ugu horeeya ee markuu halka galo oo iska soo saara TV-ga ee xamar ka daawado ninka ugu horeeya ee sida caaqilkayga baan sheegay TV-yada localka ko international dhan banu yeedhaya halkaas Soomaali oo dhan tusaya inta kamarada soo keeno inuu caaqilkaasi iyo garaadkaasi iyo xubinta baarlamaan ee dhulbaanta matalaysa inaan xaraan tahay waxaan ku oranayaa waa xaraan waxaan u sheegay wada dhaqameedka Soomaaliyeed ee halka joogay xamar hadduu qofka noocaasi galo waxaan leeyahay iska eriya yuusan idin sumayn iska eriya TV-ga ka ceebanaya yaan hadhow dhulbaanta la oranin war maxaa garaad hebel loo ceebiyay hadduu xamar tagay oo saasiliye war maxaa xubin baarlamaan oo dhulbaanta ka gasho loo ceebanaya yaa la oran waxa weeye xubinta dhulbaanta ee baarlamaanka Soomaaliya gasha ee mandate la ku gasha iyo wada dhaqameedka mandate la ku gaa dawladda Soomaaliya ha ogaado anu sheeganaya magacaygu sheeganaya aniguna magacayga ma ogoli nin ku gala xubin baarlamaan iyo golo sare golo sin magacay ku gala ma ogoli haddaba u sii dig haddaba u sii sheega yar hadhow la isku ciidoobin waxa weeye waxaan uga digaya garaadada sharafta ee karamada leh ee hadda fiican hadda way fiican yihiin wax soo socda ka digaya oo ku celinaya yaan la moodi anu garaadada Soomaaliyeed dhulbaanta inaan caawiyo inaan leeyahay hadda xun yihiin maaha waa warren waa digniin wey dignootuna way fiicanta in qofka loo sii digo way fiicanta taana waxaan uga digaya garaadada dhulbaante iyo waxgaradka dhulbaante ee danaynaya inuu xubin baarlamaan hoose noqdo iyo ninka doonaya inuu golaha sare galo way anu ka hadlay oo wax soo socda waan ka digaya 2016 inuu isku gelin nin dhulbaante sheeganaya ama wax sheeganaya inuu ka qayb gelin dawladdiisa iyo maamulkiisa oo go'aan gaadhay iyo shacabkiisa oo dhulbaante oo go'aan daba taagan ninka halka iska maray xamar taga ee halka iska dhiida ha ogaado ninka ugu horeeya ee TV-ga magaciisa iyo sawirkiisa u taagaya ee Soomaali weyn ku ceebanaya aniga weey haddaba wadi sheeg hay sheegan anaga hadhow taan halkaas kaga bax dhulbaante waxaan u sheegaya ama reer Khartoum u sheegaya ama maamul goboleedka Khartoum u sheegaya oo kale 2016 maxsaba weegta sideeba weegta ilaahay baa garanaya wax soo socdo sideeba weegta waa for future waxa ka hadlay waa doorashooyin soo socda Soomaaliya sideeba weegta ma ka fiicnaan doontaa Xasan Sheikh dawladda imaan doonta ma madaxweyne caadil oo sharaf la imaan doona sideeba weegta
rajo kama qabo 2016 madaxweynaha Soomaaliya iyo Prime Ministerka Soomaaliya ee imaanaya rajo kama qabo hadda bay idin sheegaya rajo kama qabo waay sabab waxaan rajo uga qabin faroole oo aad taqaanaan oo Puntland madaxweyne ka ahaa oo dambiile ah oo dadkii reer Taleex laayay oo markii reer Taleex uu diray wiilku adeerka u ahaa iyo kuwa dhalay ciidanka u dhiibay oo soo laayay reer Taleex ee soo laayay iyo kuwii dhulbaante sheeganayay ee Axmed Karaash ugu horeeyay oo lacagta siiyay markuu yiri laayay la soo laayay ee ay soo laayeen dadkii waa tigarawa markay yimaadeen kuwii dadka soo laayeen من حدك يا جرادل سي الفيالسي كيلو بهته أنت تروح كلا يا أحمد كراش لو ذيك أركي والسير بسي سودو وكير سودو أحمد كراشو من حتوية على مقابلة كلمة ديس سودو وكير قول بتصوص ما يسي وتصوص ما يسي والكومة علينا الناس عم تصوص ما يسي وكعن قال أحمد كراش من حتوية ده بتلان وحن عصرية مادية هنقول بهته يا صحافة الرباط إني كسر عليان ودب السعوديان ما ننت النوع عاصة إيه أحمد كراش إيه المفرولة إيه فرولة أي صورة إيه تبكي رتله إيه وجوهم بلياني مدحتويني سوهم بلياني إنا صورة يصير تبكي ترى إنا صورة يصير وأنا كل ما هي علينا نبير وحن تكون أصلا يا صحافة الرباط إني دب السعوديان على كاس إنا بيش شيء ينكر سواك بين الشيء سيدا صيد خذ كسر ويقول صحافة الرباط دب السعوديان فرولة وأنك النوعاسة أيام مدحوينيه الصومالي شرح السبولة سومالي سكينية وأنك النوعاسة كوة سو كان بين كرا كان بين كوزو ترينك مدحوينها الصومالي 2016 ربعنا وبكوة كسيليتا كسيدا هل كاو حكم مقتمرك حاران بركة تكتب حاران كلا إمارس وحنا الشيء يا مركا شعب كبر بعض إمام الجبل كخاطمه قرن الصوماليات مجرو قرن الصوماليات مدوى هدينو قرن الصوماليات ذاك تري مدوى وما هدول شراب عمل له دور ما بتجنوا ما مسني قرن الصوماليات ونبعض ما برسون قطعنا قاب كوي أكتر ما كان يجي يقاب كعالم كوش غيره يقاب الصومال لو كلا قايبينه يقاب كمام الجبليات بنت لو وصلين بيرو بغير غير ولا ما بلا وحده ويسجل على بقرة وحلي هذا غير الكفيان منافقات ده وكده غير البحلي هذا غير الكفيان وعصا يستيقظ إنترنت قمرت قلت عليه أمره وحكى مركب حوي راخة طبعا وهيسكوها لنا قرن الصومالية وأنا بهاي دتك راخة طبعا ودت دولة نمتشعل ودت وطنيين ودت تعل السيستم هي شرعية نظام القرآن وحين كوبا بار ووقت من الكلام وصدق السنة اللي صارنا في وقت من الكلام والصومالية ودنا إنه هوستو مرة وحوي سين قرن الصومالية السكني سيدي الشرعية نظام إلهي أن ترمى قفل بدل ما أنت شرعي إلهي إذا قصتين ما يجرو وهي قرنك النظام الصومالي لماذا إيوه بمسكحك هي عالم كسوة مسكحك ويجرو مركز شرعي إلهي وهي مسكحك يجرو وكديسي قرن صوماليات والشرف لصون غنيا وكديسي ريال خاطمة سيدي سلوشيغية اسكت الشرع إلهي بكرامة إدسيي إلهي بطل يتكرنغي عد إذن كفي عن مجرد صومالي عد كفي عن مجرد وأنا سوي دل إلهي دسي دل إلهي دسي مدح يا ليدرز أي إلهي دسي مال يحارب بإلهي دسي عقل يقوم بإلهي دسي أنت صدق الحيستان أنت بإله بيدسي هاي استعفننا هنا إسكندجينا دل تأمل وحكسي واحد كسي مجرى قفكوا يسووا وين سكراميو قفكوا وين يسووا أوديسي يا كراميدسي سعوديو وين يسووا ساركوني وإحنا غكروا تانا واحد الشيء يا رخاطمه إن أن عد كتاريخ رون جرين وذكتي لبلا معمول هريرة تاريخ ذا أنا قادر بدقيست مركي هالليان مركي دتك الشعب كله هالليان مركي ذاك هالليان قادر بدقيست قالوا واحد ترى هذا مالتي كورنيل عبد الله يوسف والصوماليا كبحي يبقى أنت SDF أنت سوي تاريخ ذا وأنت سكون عليا كوه هرجيست شوكا مالتي أنا قحني إثيوبيا وقحني يا مالتي الصون قحني تاريخ ذا وأنت ومالتي البحري يمانتي الصون قحني وكوبي سكاشك تاريخ ذا محيته هذا ماني كبر بانتو أما فكر خاطر معي تاريخ ذا دقيقة
قفك ويننا وجه كوري رنا وشيء تاريخ هذا وكل يستدل بقول يا أفرتن كيوي دجال قالوا أفريقيا ماشي قد دجال كوينيت دول كتكونوا شيوي عاصمة أفريقيا الديار ده نوع يودن بي لغو كراعو عالم كأفريقيا وتلحوي سيداس ليبريريجا عالم كله بيانا بوكت ليبريريجا يردو كوريجا يكتسا أي كبوحة دول بهات تاريخ دس هل كسو يلا ليبريري كسو يلا تاريخ دينو نواسدا مركز دتك النوع عاصي كتاريخ في عنتين إن الدم فريستان أو مالو والبعوض وحكر هذا السان ومالو والبعوض وحسي وضعفنه ودلنه مركز واحد كرة لنا إن أتانا إسكائيل على الإنسان وكرامة إن يشرت نسوس الإنسان تانا هكذا سكاب حياة وحوي وأن مدحوينها مامل قبلات في خاطمه يقوليه يسوي سير يقوليه يسوي برلمان قعد صنيع وحن عاو قعد صنيع صد السنة أما شرية لبعض السنة ويران بالقرن السومالي يسيستم دولة يشرف يا كلام سويني يشرعي إلى إنه إلى إنه وحن الشيء قعد صنيع مامل بين النهاي دسان بيننا مامل كاس أنو لين وحلم بديهاي كجروي وحلم بديهاي كهرجيسة وحلم بديهاي كتشوبلان وحلم بديهاي كبيدبا وحلم بديهاي كقلب بولم بديهاي وكذا عيدا ما أنو لين عيدا ما أيوليه مامل كخاطم عيدا موليه عيدا ما راس واحد درجة هوا يراته أول السيا مجد عيدا ما راسي دولة الصومالية وقرادو أما الدرجة الصينية سمجرته على لا يكرم وحنو الشيء مامل قبلت في خاطبه ومدحوينه يقولوا يصير برنامج الشيء بوتلان عيدا كذا يلا طلع استفروا لقرادها كبحي شبلان مدحوينه هذا قرادها الصيا بيدبا مدحوينه هذا قرادها الصيا عيدا كيسي جمدوا مدحوينه هذا قرادها يعيدك الصيا إيجا أقيمية نكا سركال نقرية إيه نكا سركال الحجال نقرية إيجا أقيمية ماشي قرن الصومالية أي درجة بحية ميت قرن الصومالية ده خاتمه أما ما بلك خاتمه قرن الصومالية مين قرادها الرير ولا إستجا أي عيدا كيس أقيمية قراديس الصيا أقول سيلاي الرير كيس وكنت حيوان قرادو عبد الولي هيركيس وقرأت كوتر شوف الله وصاص وكله بيدما وصاص وكله إن قبل دق وصاص وكله إذا ما نقدر هذا الوسي كي ألف فوق الألف كي بلسي كي حرق له حرق كي بلسي كي حدق له سركال ما وقول حدق تبلسي قاشان له حق قاشان سرير قاشان سرير لبعي شننا حتى مغلي شننا نقدر شننا حتى لبعي شننا نو شننا لسي حتى وأنا ويسكو كورسان معي كوا أنا ورث كورساهين وشنا ما تجروي جروي شنا لكي وأنا واتاس وأنا شيء كنا مرة ما كنا كشربه وشنا رلوي مات ياسي عبد الولي بسي وشنا عبد الولي بسي يسوي كورسا معي يا بحية درجة ما أنت درجة إذا ما أنت واحد بحية غير ولا مدحوينه أي بحية يا مركب بحية يا غير خاتم عيدا كيس عيدا كا ما من القبلات كخاتمه ما أنت كسرن عيدا كا التجارمية الدلك الصومالي التجارمية أمة الصومال التجارمية الدول كودي دلك التجارمية يا جرادة حسين يوم السلوكة والسؤال يا ما هو حل السوق يا قرن الصوماليات ده جرادة حسين يوم يا كالصغار إلى القرن الصومالي للسكان إذا كرالية ما مقبلة إذا كرالية كالصغار إلى القرن الصومالي الجرادة للسكان ما أنت قرن الصومالي اللي هرب إذا كي رخاطمه وبلا درجة يعيدا كي هرجيسة يكي فرولة يكي عبد الولي يكي مامور كلايسو يمان دونا يلا حكومة يا مكة بل ذيك اللي ويدينا يلا حكومة وحلا حكومة يا عيدا كالريخة طواع يلا حكومة يا بكوس درجة بمري ألف لها قالوا وكقات ألف كا دب لها الريخة طواع حكومة يا حدق لها
هرجيسة قاطي أي حكومة يرخاتهم جرادة بس حكومية وأنا لقول حسابتها يا جرادة هي كسية حاجة صعبة ما حد جرادة الله يستر ما حد جرادة قاطي مركز رخاتهم عيدك ما أنت تشوف خاتمة وأنت قلبية ما وحي السجيان حديقة الصوماليين اللي حديقة السيو أي السجيان مركز واحد كعب صنيع ما أمر قبلات كخاتمة واحد كعب صنيع وأنا رأيي جيجوي واحد كعب صنيع مدحوينها ما أمر قبلات كخاتمة يقول لي يسوي سير يقولها برلمان إنه أركب بالأفر سنة أفرستان أو بالقينيان أركنا كهضيا وربع عيدا كان أين له يسمى وعيدا بينه يسمى ما أمر قبلات بينه الله كهرجيسة يكجروا يكجبلان يكبيدوا عدد الله مدوانه الله جراديه ولا وضقاطي إنهم ما وحوي عيدا نون إسكا أنه جرادبار هاي إنه إسكا صعدة بينهم واحد سنة بريكم مالنا الصومالة ديسو تماتو إنك من الحكومة عيدا كنا ولا الحكومة إلى جرادبار ثاني واحد لو حساب تما يوجد وجراده واحد كله يدي شيء أنيقو ظروف كستانو عيدا كمورل كيس ما هالعقل الصيو كليه معه مورل كعيدا كوحوي ودرجوي قريب كم من مورل كوي درجو نيكا استوى دبلع تقالبي أو تقال كرشالي هو جني يميجا قلت كل كسهولي الدبلها مركز ألف سيسو مورل كيس عركو تجيا مركز $100 سيسو هي مركز ألف سيسو مورل كيس وحدة بليها مركز ألف سيسو because درت فقط وهذا هو ألف فقط سيسو سوى دبلها اسكندة حرق لها هي ألف لها هي لما ألف لها يستحق لها إلو استركال لماذا إلو جراتها هي درجة الله بحنا يا وحي مورل وبستعيدك يا مورل وبست لكن عقل معها عيدا يمامل استدبا الصعود وان الدرجة الله بحنين عيدا الدرجة بالهين يعني مورل بمالي مركا وحن كعد صريا إني بالهذا كأنه هذا الشيء دويعك مدحوينها يقوليس وسيرده وإني قيمية بالدويعك وإني تلياشا عيدا ماذا كل شغالة له أرك عيدا ماذا بل وإنه أيها الناس قدبي dadka qiimaha u leh in banniga kala ka fiican yahay in banniga ka qiimo badan yahay in banniga ka tababaran yahay in banniga ka waxbarasho badan yahay sidii aynu darajo loogu qiimeyn lahaa anoo aan lahayn darajo la iska hoosiyo dadka anu saama waa in laakiin loo qiimeeyaa ninka karshaale iyo hagoogane iyo beegaagle iyo kalabayr iyo saxdheer iyo ballacad iyo wurwur ka dagaalamaya ee kaysa daba socda wasiirka nimanka gudaha daba socda dagaalamaya dhaawacmaya oo wax darajo ah la siinay ka jooga garowe iyo ka cadaadad jooga ka hargeysa darajo la siinayo ki qaranka Soomaaliya umada Soomaaliya naftiisa u dagaalay reer sana wax la siin maayo adeer ma dhacayso waxa weeye bal dib loo qiimeeyo waa in maamul goboleedka khaatimo uu bixiyo darajada ciidamada waa inuu bixiyo ila reer walba garaadidiisu bixiyo reer waliba madaxweynaha garaadidiisa yaa bari la xukumayo معينك خاطمه ابوه اللي تشوجه ابن جرادها بقرا حكوميسا اما هرجيس حكوميسا لو ولا حكوميه هذه اللي قاعد ضبطه بريتو ما كان يسوي مادو يا جراد لوي ادوكم حاطه ادوكم حاطه هيستا جراد مريضه ما حاطه ولا لي نيك ريخاتو ند وحوما هي بلد ونيك اسك سعودي marka waxaan ka codsanayaa maamul gobolka khaatimo awood buuxda u leeyahay maamul baatin in Allah iyo intii qaran Soomaali sameeyay ay maamul gobolka sameeyay oo sharci darra in Allah la intii qaran Soomaaliyeed sameyn lahaa ay hargeysa laga sameeyaa oo garowe laga sameeyaa oo kuwa kala sameeyaa dastuurka Soomaaliya ma shaqeynayo cid ixtiraamaysa ma jirto marka reer khaatimo iyo maamul goboleedkayga wuxuu sheegayaa hay iska sugina sharci iyo dawlad iyo qaran Soomaaliyeed oo meel imaanaya la garanay inta hore la sugteen oo la idinku dhaafay haddana in garaadihi ciidamada iyo darajadii ciidamada ay dhaafto haddana oo ciidan iska haysan meel ku haysan bila darajo oo inta dagaalamaya de suurtagal ma marka waxaan ka codsanayaa arrinka bal in madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada golihiisa baarlamaanka bal inay dib ugu noqdaan darajada ciidamada inay dib ugu noqdaan مسيلاية كفيعة مع عبد الولي بيت كفيعة قرأتو بحيلي أنا ضربو بحيلي شوف اللمبة بحيلي سكرات ده كهمين صدق على
قرأت على سيني كان رأخ طبيعي همين يهم على صورة دقالما يعني عند رجال سيني سماري يرسوك يا واي نكاس نكا هكا شغل هبو هذا دقالما أسكريكا إيه أنت الله عينبا إيه أنت دقالما يا إيه كل كلام دقالما يا هذا يستقل الحكومة وقول نكا رأخ طبيعي أسكريكا إيه دقالما يا أما سركان هوري هذا أما عيد وحدنا هذا إيه دقالما يا كأجر وحكومة يا كاتشو جه جسد قرأت عشاطي بريمك سوتي ماذا وعصرنا يصير وده خسارة أركا إن الله كلها وسيرنا يمدحونا إيو برلمان كوينة إيجا وعيد كاس رخاطة من بنترتشة ده إسكت دقالما يا إبريل الحكومة دونه إن بالأريتو بالله عيبنا ما مدحونا خاطمه بروفيسور علي خليف يدوري تسمع كعصرية وانقرنا يا مسكح لنا حكومة شركة أما درنكينا قرن لماذا الصوماليين يجي درجة بحية والدرجة يا بحية ولا يقنا درجة واحد بحية ده قرن الصوماليين أي بحية براسنا اسمه اللي بحية أنا أقول عمي ننام بنا الوقاطة ننام بنا الوقاطة تاس الغير من مسكح اللي كنت أول حشوط تام مثلا وربك ما بدرجة بحية كرا إنه رخاطمة إنه خاطمة والغير لكن وانا معتي حشوط دماء جروا ولا بحية دماء رجلوا قرأت حديها كورنالي ترى اللي بسين مدحونا يا شخصية حشود بجرو وإن لسيا عيدا ما خاطبه كود دجالي همين تا إن بنك كله كدجال بدنيه وإن لسيا قرأته وين لسيو نك حدك وقلنا حدك توين لسيو نك ألف وقلنا ألف كوين لسيو نك الألف لو قلنا الألف كوين لسيو تاس أي مورالي يو كرامة عيدك إرك جيسة ما بقول دولار يعجل لسيو ألف كوقي ما بدن يحدك توقي ما بدن تاسوي تبرير لو حسابتما يا الصومالي وين حسابتما سام marka la siimaado ciidamada soo yimaadaan waata ka soo qaad in ciidanka xoogga dalka Soomaaliya soo ururiyo dhamaan gobolada Soomaaliya example baba haday dhacdo ma aaminsan dhacaysay ka soo qaad reexaatumo markay meesha tagaan xabad daraja ciidamadooda male kuwa kale waxay soo tubiyeen wada garaadali sayeela reexaatumo marka soo wada sirdo qaran bad sugays dee lagu dhaafid qaran sugays ha wasila marka waxaan codsanayaa in لقد دلالة السيد درجة عيدا بدل الله بحلا عيبنا معه تانا قصة خبحية غير خاطمه مامل قبلات خاطمه وكوب جوليستي وكوب جوليستي سياسة دي وكوب جوليستي سياسة دي دبدا هي تيب جودها ويقول بدن تيلا بدن مامل هريرها يتعيفك وكوب جوليستي تانا قرية أو وكوب جوليستي معها هراي مركب وها هراي قوري بحري سياسة مرن وقوري لهينا مش قيسو قوري مرن وسياسة لهينا مش قيسو حتى ما تقول السياسة وضو أنا قوري ترين ده بس خاينس حتى ما تقول قوري وضو وسكت قالنس والسياسة كتب بين مش خاينس وقتين قوة عندك قوري مريكك مركب وهر السياسة وكذا وتكور ربنا عنو سياسة وكذا مركب وش شقي ويدو قوري بكذا واسدا وسكيل ما يجي سياسة دي يقولي جوا الصحراء حتى قوري سياسة الله يقولي بصفة عن مشغلين حتى سياسة دي حتى قوري سياسة الله يصير وين الشغلين سياسة دي يقولي وين الشغلين مركب وتكون جولستين سياسة دي أنا عاوز يدين غير وكون جولستين لبدا معمول وكون جولستين هبين كان هذا الشام مدفع بتكون ردين مدفع هذا القضية مدفع بتكون ردين إن المدفع كون ردين بلا ميت تنا وحنوي وإن قوري جينا كتر السياسة تكون جولستين قوري جينا كم كان أنا يدي الشيء يعاو كبدة كوحها اللي بدأ كبدة عيارية يدتك تاجرية شيء يدتك داورية كي خلالات كاركا ما واحد داورية نكن عيارية هلك كوتشنا ويرك يدفع مستنك دبتك داورية تاجرها يا كي خلتك وحاركا نك دبتك داورية قف دبتك داورية ياك because كان ورديا والدفاع يورد كوتشنا ومروح الدفاع يمروح ويرني خلتك هذا مارك مركب حوي سياستي وفقوا ليستين قريقنا قدر قريق وانا مسناهي ما داموا رقع داقي سياسة صوماليا لما روكا على خليف وماشا فرديبوه هذا وان اوجهي اني عقلي يسي مسكح لسما هذا كان الشيء اننا كم مخلين كمان مخنا علي وان اوجهي عقلي اننا كم مخلين هذا كان هو هذا الشيء معناه هذا ماها ان انا ادو كاقون بدنا كعقل بدنا لكن واحد اوجهي انه علي اوجهي دمانتي ودوقتين لكن أنا ورأيي يا عقلي يا أركتي ذوي وكبورين إيوه وعد الجنوي وي مركب حوي وإن الحبة كترت هذا واجنا ما له ما فرستو
sugo aqalkaaga laguma sugo cadowgaaga nin aniga macallin aha kulliyadda ciidamada ee jaalasiyaad marka ku jiray nin waxa la taabari jiray ninkii kulliyadda kale waa yaqaana maxamed abakar baa loo jiray waa nin reer Hargeysa magaciisa naanistiisa waxa loo jiray John Hall baa loo jiray magaciisa wuxuu ahaa kamaan dawsi saraakiisha kamaan dawsi Masar ka soo baxay koronto ayaa inta ka gubtay uu garanaya nin kasta oo kulliyadda kale uu garanaya John Hall baa leeyahay ninka ugu tababarka adag ee ugu ciqaabta adag buu ahaa kulliyadda ciidamada jaalisiyaad uu garanaya ninka soo maray John Hall ninkaas waa ninka ugu ciqaabta badnaa buu ee kulliyadda joogay waxaan ku xusuustaa hadalkiisii waxaan ku xusuustaa cadowgaaga intuusan ku dilin baa la dilaa cadowgaaga guriga laguma sugo haddaad gurigaaga iyo carruurtaada cadowga ku sugtid dee marka yimaadaan ma gurigaaga iyo carruurtaada baa laisku kindubinaya cadowga bartiisa lagu dilaa bartiisa ugu tag ha ku sugin guriga waxaan u sheegayaa maamul goboleedka Khaatumo iyo shacabka Khaatumo iyo reer Buuhood iyo dhammaan dadka jooga dhulkii cadowgiina ha ku sugin aqalada cadowgiina aqalada ha ku sugin ninkaas taliyaha ahaa ninka tababarka nasiishiisa soo dhigay waa cashar dhan weeye ha ku sugin Buuhood ha ku sugin Kalabay ha ku sugin Saxdheer wuxuu ha ku sugin balacada ku sugin cadowgiina cadowgaagu mar hadduu meesha ku sugto kugu yimaado ku dilayaa cadowgaaga waxa loogu tagaa meesha loogu tagaa barta ugu tagaa cadowgaaga barta ugu tagaa haddii jeer waxa dhacda in la yiraahdo magay hebla ayaa islantu soo gashay wallahi yaabaysa ma meesha lagu sugay ha sugina cadowga meesha loogu tagaa waa cashar dhan weeye cadowga ha ku sugina gurihiin taasna way ga dardaaran waxaan kale ku soo gabagabeynaya oo anagu sheekadeeda hadda halkay kaga baxaya taas haddaan aan khaldamayna raalli ha ahaado alla ahaado aniga hadalkaygu waa ra'yigayga waa caqligayga waa maskaxdayda haddiya jeer shirarka qabtana saasaan idhahaa waxa weeye cidi soo dirsatay iyo cid lacag igu siisay midna ma jiro marka waxa weeye dhammaan reer Khaatumo waxaan ka codsanayaa inay taageeraan oo dibadda u soo baxaan go'aankii dhaxalgalka ahaa ee qiimaha lahaa ee ay soo saareen golihii wasiirada iyo madaxweynihii Khaatumo ay soo saareen shalay dhammaan waa in la taageero dhammaan weyn meediyaha la yimaado oo ana qalada la iska fadhin oo la iska aamusin waa inaad taageerto oo dibadda u soo baxdo caalamka iyo dadka Soomaaliyeed waxay ku arkayaan go'aanka Khaatumo soo baxday dadkii ma taageersan yihiin dadkii loo ahaa maamulka dadkii madaxda loo ma taageersan yihiin haddaad iska aamusto aqal hoosta ka hadashay oo dibadda u soo bixin waxa lagu qaadanaya maamul yar oo Buuhood jooga oo iska hadlay baa lagu arkaya haddaad soo baxdana oo ra'yigaaga iyo arigaaga iyo caqligaaga dhibatidna waxa lagu arkaya inaad taageersatay maamulkaaga maamulku wuxuu noqonayaa shacab maamul waa shacab inta maamul bama marka waxaan ka codsanayaa soo baxa dibadda u soo baxa oo taageera maamulkiina oo taageera arrintii shalay ficneed ay gaareen maamulkana waxaan leeyahay halkaa ka wada waa nal wey nal baati waa nalkan ku tirsanan anigu halkan aan joogo been markaan sheegay 27 sano ama 28 sano ayaan joogaa anigu qurban 27 years baan joogaa afartii sano ee ugu dambeysay ee Khaatumo la sameeyay ayaan maqaaxi kafee ka cabay Soomaali fadhido dhowr iyo 20 sano ee kale maqaaxi Soomaaliyeed ma fadhiisan jirin waxaan geli jiray kuwa gaalada iyo ayaa kafeega ka qabsan jiray because why waxaan qofka Soomaaliga la istaagtay wuxuu qoran lahaa wareer adiga ma waxa tahay kuwa Soomaaliland mise waxa tahay kuwa Puntland halka maxaa ka aragta in magacaaga dhul baahantay iyo magacaaga Khaatumo magacaaga dhul baahantay meesha ma ka baxay oo kaba baxay baa sabab marka maqaxi u fadhiis sabab ma jirin badii mar hadda Soomaali maqaxi fadhiyo toonto warbali waran ma kuwa garowa tahay mise kuwa Hargeysa kulay ma baa muuqata inaad dhul leedahay inaad dad tahay inaad dhul baahantay baba way sii socod marka waxa weeye hadda maqaxiya Soomaaliya si fiican ma kafeega uga cabaa u fadhiista because maamul baan leeyahay magac baan leeyahay liya Khaatumo taas qofka caqliga ee reer Khaatumo uu garanaya meel kasta joogo ninkan caqliga lahayn
sheegi maayidii isaga jirta marka waxaan ka codsanayaa maamulka Khaatumo hawshiisa halkaan ka sii wato inta halka joogtaan oo dhaqaaqaysan hadlaysaa Khaatumo waa jirtaa cadowguna waxa weeye habeenkada hadashaan basan horaba u sheegay waa murana dilaac wuxuu moodaa markaad amustaanba inaad khadkaba ka baxdo iska tagtaanba oo ma iska tagteen ama iska baabaadeenba oo nima meel ka baxay habeenkada hadashaan gantaal bay la mid tahay gantaal ridday ogaada taana idin sheegay waxa weeye hay siiraysanina hay soorinina maamul iska daciifiyo waxa ma jirto waxa tiin maamul dhisan qaabkiisa dawladnimo leh nidaamkiisa leh ayaati ku hareeruhuna waa intaan leeg wax kale meesha yaala male hargeysa lagu wada shirsanyo hargeysa lagu wada qaylinaya hargeysa lagu wada garow lagu wada qaylinaya cadaadada lagu wada qaylinaya kismaa lagu wada dawlad kale boohod la joogta maxay kaga duwantay boohod maxay kaga duwantay kismaa boohod garow maxay kaga duwantay boohod maxay kaga duwantay hargeysa golaha baarlamaanka hargeysa ku garow ku cadaadada maxay kaga duwan yihiin golaha baarlamaanka boohod la fadhiya aniga aqligayga iyo talentiga waa saas iyo maskaxdayda waa sida qofkii aqliga dhulbaantana uu garanaya laakiin kan garanayn garow wuxuu arkaa kii hargeysa wuxuu arkaa sabada waa dadka iska daciifka anaga shaqadayda maaha waxa weeye halka ka wada wada taageersanahay hadla go'aamo gaara dawladnimada intii dawlad Soomaaliyeed gaari jirtay gaara intii qaran Soomaaliyeed gaari jiray gaara ha uga eexaysanina war meelu sameyn karaayo war miya soo ceema inagu qaran Soomaaliyeed inuu awood walba oo qaran Soomaaliyeed idinka gacanta ugu jirta sidaasaan idinku hambalyeynaya والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمنتوا وانت سلامية مع السلامة.